السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داود الكسور دواد وركي عيارها بولش سبورت واني وحسن عمر حسين قضبضا إنها ينوى حكمدا ليفربول وفصحد لبع عيارتو برشلونة ayaa la xiriirinaya difaaca bidix saako diyaar u ah kulanka England iyo Denmark Tottenham ayaa cishan doonta Harry Kane Cristiano Ronaldo oo Juventus u sheegay go'aankiisa intaas waxay ahayn qodobadii wararka haadana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Liverpool ayaa fasaxday laba ciyaarto qodobkaasi waxa eegaysa Mono Cismaan kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa shaacisay magacyada labada ciyaarto ee iibisay kuwaas oo ay ka helaysa lacag aan badnayn tababara Jurgen Klopp ayaa si hoos ula socda tartanka qaramada Yurub oo ku fiirsanaya laacibiinta tayadoodu wanaagsan ee aan qiimahoodii badnayn Reedis oo xil ciyaareedkeedii uu hore dhibaatootay markii ay dhaawacmeen saddexda difaac ee Virgil van Dijk Reedis oo xil ciyaareedkii hore dhibaatootay markii ay dhaawacmeen saddex difaac ee Virgil van Dijk Joe Gomez iyo Joel Matip ayna ugu darsameen Jordan Henderson iyo Naby Keita Michael Edward ayaa wuxuu fasaxay laba ciyaartoy oo da'yarta ee Lee Miller oo u wareegay FC Basel iyo Kamil Garabara oo tagay FC Copenhagen Cristiano Ronaldo oo Juventus u sheegay go'aankiisa qodobkaasi waxa eegaysa Mono Cismaan wakiilka weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo oo loo magacaabo Jorge Mendes ayaa lagu soo waramayaa inuu kooxdaasi u sheegay go'aanka kama dambaysta ah ciyaaryahanka uu garwadeenka ka yahay sidoo hadda sheegaya wargeyska La Gazzetta dello Sport oo go'aanka Ronaldo ee loo dhigtaagay ayaa hadda soo saaray wakiilka Jorge Mendes ayaa u sheegay Juventus inuu xidigiisu doonayo qandaraas cusub halkii laga filayo inuu kooxda ka baxo Cristiano Ronaldo ayaa wacdaro ku soo dhigay tartanka haatan socda ee Euro 2020 isaga oo wali hogaaminaya gool dhalinta tartankaasi isla markaana muujiyay inuu wali isagoo 36 sano jir ah wax badan qaban karo Barcelona ayaa la xiriirinay difaaca bidix qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar Xuseen difaaca bidix ayaa diyaar u ah inuu ka hadlo heshiiskiisa xagaagan maadaama Jarmalka laga reebay Euro 2020 Robin Gosens ayaa soo jeedinay inuu u furan yahay inuu ku biiro Barcelona difaaca buuxa ee Atalanta wuxuu ka mid noqday halyeeyada dalkiisa isagoo leh hal gool iyo laba caawin Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseynayso saxiixa xagaagan 26 jirkan ayaa sheegay inuu mustaqbalkiisa kala hadli doono aabihiis oo sidoo kale ah wakiilkiisa saako oo diyaar u ah kulanka England iyo Denmark qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar Xuseen ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Arsenal ayaa sheegay quarter finalka tababaraha England Southgate ayaa xaqiijinaya Bukayo Saka ayaa taam u noqon doona kulanka Arbacada ee semifinalka Euro 2020 ayaa la ciyaaray Denmark Saka ayaa lagu qasbay inuu seego kulankii Sabtidii ay 4-0 ay kaga badiyeen Ukraine wareegga 8 iyadoo dhaawac yar uu ka soo gaaray tababarka Tottenham ayaa cishan doonta Harry Kane qodobkaasi waxa eegaysa Mono Cismaan mustaqbalka saddexda jeer ee ku guuleystay kabaha dahabka ee Premier League ayaa wali su'aal ka taagan tahay agaasimaha sportska kooxda Tottenham Fabio Paratici oo sheegaya in siyaasashada Harry Kane ay tahay yoolka kooxda Kane ayaa horey u soo cadeeyay inuu doonayo inuu ka dhaqaaq Spurs taasoo muujinaysa inuu doonayo inuu ka ciyaaro tartamada ugu waaweyn qaaradda Yurub waxaa xiiso ba'an ugu jira Manchester United Manchester City waxaa sidoo kale la xiriirinaya kooxaha Chelsea iyo Paris Saint-Germain intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wararkii ciyaaraha ee Bulsho Sports waa anigoo Xasan Cumar Xuseen sidaas iyo nabadgelyo